midkani waa muuqaal kooban oo aan hadlayno qaraxii ka dhacay Sri Lanka geeyahan wadanka ma ka hadlayno laakiin waxa ka hadlayna caasimadda Sri Lanka ee Freetown caasimadda wadanka Sri Lanka Freetown waxa ka dhacay qarax aad u weyn kaasoo ay sababtay booyad shidaal waday 100 qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi wasaaraha wadanka Sri Lanka ayaa wuxuu sheegay in la dabiibi doono dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi wadankan ku yaal qaaradda Afrika oo kamid ah wadamada dhaqaalahoodu soo korayay ee qaraxan xumaato weyn u geystay dhaqaale xumana uu sabab doona qaraxan maadaama uu burburiyay dhismooyin aad u qaali ah iyo dad shacab u laayay wasaaraha hadalkiisii wata ayaa wuxuu sheegay in dadkii laga dhintay ay qoysaskooda u qaybi doonaan lacag dhan 10 milyan oo dollarka Mareykanka raaligelin ayuu ku bixiyay wixii dhacay wuxuuna sheegay wasaaraha in ay baaritaan suubinayaan Afrika kuma badna qaraxyaasha noocan ah laakiin waa mid kamid ah qaraxyaashii ugu saameynta badnaa Afrika ka dhaco Sri Lanka Freetown maanta waa magaalo xaaladeedu ay kacsan tahay muuqaalkeena maanta intaas ayaan ku gabagabeynayaa